mas-uuliyiin ka socota hay-adda wadooyinka iyo horumarinta jidadka Somaliland ayaa waxay fiidnimadii xalay soo gaadheen degmada Baki ee gobolka Awdal. mas-uuliyiintani oo saameyn ku sameynayay dhismaha wadada isku xidhi doonta magaalada Boorama iyo degmada Baki ayaa waxay kala ahaayeen kusimaha maareeyaha hay-adda wadooyinka iyo horumarinta jidadka Somaliland, agaasimaha waaxda qorsheynta ee hay-adda horumarinta wadooyinka iyo jidadka. mas-uuliyiin ka socotay hay-adda Save the Children ayaa waxaa halkaasi ku qaabilayay kuna soo dhaweeyay gudoomiye ku-xigeenka degmada Baki Dayib Xasan Raago Cudad. ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Baki Dayib Xasan Raago Cudad, waxaana hadalka uga dambeeyay wasiir hore ahna xildhibaan u taagan jagada golaha wakiilada ee Somaliland ee gobolka Awdal Cali Xaamid Jibriil, waxaana hadaladoodii kamid ahaa: kan waxaan ku daafuraynaa caawa barnaamijkii u horeeyay ee wadada isku xidha. waa markii labaad. markii hore waxa lagu daafuray qaybteeda Boorama, tan caawa waxa weeyaan qaybteeda labaad ee Baki. wadadani oo isku xidha Boorama iyo Baki oo ay wada hay'adda wadooyinka qaranku iyo hay'adda Save the Children iyo dadweynaha reer Baki iyo kuwa waliba Boorama iyo dawladda dhexe ka wada qayb qaadanay dhamaanteedba. waxaan ka caawa aan daafuraynaa si aad ogtihiin wadadani oo barnaamijkeegu in badan soo socday. wuxuu maanta bilaabmay. waxaan waliba aad ugu baraarujinaynaa dadkii reer Baki sugayay waqtiga badan ilaa agaasimo waxay sugayeen dadkan xilligii madaxweynuhu musharax ahaa ee halkaan iskugu nimidnay ballanqaadkii uu ku sameeyay Dijaamiley meesha la yiraahdo kamid ahayd. waxaan filayaa xilli buu soo daahay. way sugayeen dadka reer Baki. waxaan u diyaarnahay dhamaantood inaan ka wada qayb qaadano. waxaan leenahay reer Baki waxa la iniga baahan yahay intiini hawshii qaranku u dhaqaajiyay, gobolku u dhaqaajiyay, dhamaantood waxa laga rabaa dadka reer Baki inay u diyaar garoobaan inay hawsha ka wada qayb qaataan. hawshaas oo inoo alaf dhabar. waxaan filayaa waa halkii ugu dareyd ee waa meel la asiibay. waa baahidii ugu khatarta badnayd ee haysatay hay'adda wadooyinka qaranku oo u xil saaran inay wadooyinka qaranka gaarsiiso oo mandate-keegii tahay. waxaan iyadoo shaqadeedii qabsatay haddana waxaan ugu hambaliyeynaynaa hawsha la qabtay dhamaanteed cid kastoo ka qayb qaadatayba. wadadani waa wada aan muddo badan baan hamiga ku jirtay. markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi ka ahaa musharaxa Jamhuuriyadda Somaliland ayaan halkan keenay xiliyadii ololaha oo beerta halkan joogay oo maalintan kula hadlay. ballanqaadadii iyo waxqabadadii way kamid ahayd jidadkan inuu wax ka tari doono. waa ilaahay maandii caawa ballanqaadadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland ay ballanqaadadoodii waxay ka fulaan oo ay miisaaniyadda loogu daray si jidkan wax looga caawiyo. waxaa kaloo si gaar ah iyadoo maadnay hay'adda UNICEF Save the Children hay'adda Save the Children oo iyaduna contribution xoog la keentay oo jidkan ku daraysa. waxaan filayaa inuu shaqadii noo bilaabanto ay socoto oo ay shaqadii soo bilaabantay wiigii hore. macaawinaad Baki nala joogtaan. marka xigana ay wadadana ay muddo sanad ama sanad iyo badhba ay ku dhammaan doonto haddii Allah awooda leh inoo saamaxo, maadaama aanay 30 kilomitir ka badnayn haddii Ilaahay yiraahdo. taas aad iyo saas wax kale ahay. waxaan dadweynaha reer Baki waxaan iyagana aan leeyahay inay contribution ka wadadan ay ka qayb qaataan haddii Ilaahay yiraahdo. dhankooga iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee hay'adda horumarinta wadooyinka iyo jidadka ee Somaliland Yaasiin Cali Aadan iyo kusimaha maareeyaha hay'adda horumarinta wadooyinka ee Somaliland Cabdiraxmaan Suldaan, waxaan hadaladoodii kamid ahaa: runtii wadadan isku xidha Boorama iyo Baki waxay ku jirtay priority-ga. waxay ku jirtay manifestka xisbiga kulmiye. waxay ku jirtay priority-ga hay'adda wadooyinka in laga qabto wax. sidaas ay tahay waxa Ilaahay mahadiisa maanta maadaama aynu joogno waqtigan in ay xukuumaddu ku dhiiratay iyo hay'adda Save the Children inay iska kaashadaan wax ka qabashada wadadan. anagu haddaan nahay hay'adda wadooyinka ama wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka oo uu hoggaan u yahay wasiirka oo isna sii hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriyaddu mudane Muuse Biixi Cabdi. waxaa ka go'an run ahaantii degmadan iyo degmada Boorame iyo in Somaliland guud ahaan la isku xidho. waxaana priority mar walba ah sektorka wadooyinka iyo sektorka extractive-ka ama wax soo saarka. labada sector in maxaan ku rahdaa production ka baan leeyahay in la xoojiyo. sidaa daraadeed waxaa suurto gashay in hay'adda Save the Children ay ka caawisay wax badan in ay fanka la bixiyo. waqtigan xaadirka ah aynu maanta joogno
waxaa soconayay imika muddo wiigaba surveygii hore oo waxaa la sameynayay in la survey gareeyo wadada surveygaasi waa feasibility study kala duwan dhinacyo kala duwan laga eegayo halkii wadada la marin lahaa meelihii wax laga duwi lahaa hadday tahay surveyga noocyadiisa kala duwan waxaa laga yaabaa bishan iminka bilaabantay ama bilaabmaysa May in ay soo dhamaato maxaan ku rahdaa daraasadaas wadada lagu hayaa wixii ka dambeeya insha Allah waxay noqonaysaa in wax qabad muuqda laga sameeyo wadada maskaxda mar wal kastoon imaado waxaan ku hayn jiray oo niyadeedu ku jirtay wadada in wax laga qabto runtii Baki ma foga waa magaalo aad u dhow waa magaalo Booramo u dhow waa magaalo gobolka u dhow waana magaalada productionka gobolka Kowka ah waa magaalo qaranka iyo gobolka qiimo badan ku leh marka inay maxay wado heshaa oo wado wanaagsan hesho oo waliba sidaan maanta surveyga u soo qaadanay wado runtii dhow oo ka dhow sida hadda wareegu imka uu yahay inay hesho Ilaahay idamkii waa waxa aad loogu farxo marka Yaasiin Cali Aadan oo maxay hay'adda ka tirsan oo maxay wadadana aad xoogaa liga si aad u dhameeyay siday tahay halkan waxaan u joogaa waxaanu runtii muhiim in boorino in maxay shacabka Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan shacabweynaha gobolka Awdal haday noqoto maxay gobolka iyo degmadaba in si weyn looga qayb qaato Sikariya Cabdi Shaafar Sikariya Saxane telefishinka caalamiga Horyal TV magaalada Boorama